ما كنت أتوقع هذه النتيجة. أشكرهم جدا، ولكن حصل خطأ مني، أعتذر أشد الاعتذار لي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبتنا قيمها بدنا كحرن channel dadweynaha ee YouTube taawada ku soo dhawaada barnaamijkeena maanta. qisadani aynu maanta barnaamijkan idin kula wadaagi doono runtii waa qiso shakhsi ahaan aniga aad ii saameysay idinkana idin saameyn doonta. shucuubta Soomaaliyeed zamanadii hore waxay ahaayeen kuwa dunida ku dhex lahaa sharaf, cizi iyo karaamo. waxay ahaayeen ummad qaaradda Afrika iyo dunida kaleba ku dhex lahaa sharaf iyo magac iyo awoodba. hase ahaatee markii uu dhexdooda ka dhashay isafgaranwaa iyo ayagoo aad ugu muqoortay oo aad ugu talax tagay dagaallo ku salaysnaa qabaa'ilo iyo weliba jilib-jilibyo, waana midda sababtay inay ummadda Soomaaliyeed facoodii iyo dunidii ay la tartami jirtay ay ka hadho. waa midda sababtay inay dhalinyartii, hooyooyinkeenii, gabdhihii walaaliheen ahaa ay u hanqal tagaan inay cagta saaraan wadamo shisheeye. waxba hadalkayaan idinku sii dheerayn qisadani ayaa waxay ka dhacday dalka Saudi Arabia. cidda qisadani soo baahisay waa cidda ay dhibaatadani haysato. waa gabadh lagu magacaabo Aamina, waxa dhashay hooyo Soomaaliyeed, aabaheed waa Sacuudiyaan. haddaba Aamina maxaa ku dhacay? si aynu u fahanno qisada xagga hoose haynu ka soo bilowno. Aamina hooyadeed waxay ka mid ahayd gabdhihii ay duruuftu ka kaxaysay dalka, isla mar ahaantaana ay duruufta nololeed u geysay wadamada Carbeed in ay nolol ka hesho. waxay tagtay dalka Saudi Arabia. haddaba gabadhani oo ahayd gabadh Ilaahay u dhameeyay qurux oo hagoogneed jamaalkii Soomaaliyeed ayaa waxa helay nin Sacuudiyaan ah, isla mar ahaantaana go'aan ku gaadhay inuu quruxdeeda ka faa'iideysto. guur ayuu soo bandhigtay sababtoo ah gabdhaha kale Sacuudiyaanku waa qaali, balse miskiintani ka soo haajirtay Soomaaliya waxa uu arkaa inayba ayada fursad u tahay maadaama ay heshay nin Carbeed misna Sacuudiyaan ah. gabadhii waxa uu isaga dhigay nin aad u wanaagsan maadaama ay tahay gabadh muslimada waxba ka gelin jinsiyadeedii meeshay ka timi. adigu waxba hadalkayaan kugu sii badin gabadhii waa uu guursaday oo waxa uu ka dhigtay marwo. adigu alxamdulillah nolosha ayay wadaageen. caruur badan oo wiilal iyo gabdho isugu jira ayay u dhashay. hooyo guriga ku jirta, dadaalaysa, rafaadaysa, misna jirkeedii ay ka soo baxeen ubad. dabcan quruxdaasi sideedii kuma sii joogayso. adigu gabadhii da'deedii baa korodhay, waayeelnimay u dhowaatay, balse ninkii oo wakhtigii uu gabadhani guursaday noloshiisu iska hoosaysay waxa uu gaadhay horumar. muddo kadib gabadh kale oo Sacuudiyaan ah ayay isbarteen, gabadhii ayuuna guursaday. haddaba arrinta la yaab ka badan ayaa waxay tahay ninkani markii uu gabadhani Sacuudiyaanka guursaday waxa uu go'aan ku gaadhay gebi ahaanba inuu faraha ka qaado xaaskiisii ay muddada badan nolosha soo wadaagayeen, iyada oo keliya maaha iyo dhammaan carruurtii uu ka dhalay. magaaladii yarayd uu kula noolaa ayuu gebi ahaanba uga guuray, waxauna u guuray ilaa iyo magaalada Jiddah. haddaba carruurtani uu gabadhani Soomaaliyeed ka dhalay oo wiilal iyo gabdhaba isugu jira ayaa waxaa ka mid ah gabadhani arrintani soo baahisay. Aamina waa gabadh 19 jir ah oo maanta ayadiyo walaalaheedba waa iska waaweyn yihiin alxamdulillah. haddii uu ka tegay arsaaqda Ilaahay baa bixiya, waxba ogama baahnaba. way ordi karayaan oo way dadaali karayaan, waa ay shaqaysan karayaan, hooyadoodna waa ay dabari karayaan. balse dhibaatada ugu weyn ee qoyskani haysata ayaa waxay tahay dalka Saudi Arabia qofku haddii aanu haysan dhalashada dalka Saudi Arabia inuu si caadi ah ugu noolaado aad iyo ugu adkaanaysaa. aabahood ayaa waxay ka codsadeen inuu u fududeeyo inay helaan dhalashada dalka Saudi Arabia maadaama cidda ay ku aftirsadaan ay yihiin asaguna uu yahay nin Sacuudiyaan ah. hase ahaatee aabahood arrintaasi waa ka soo horjeestay. gebi ahaanna gabadhii Soomaaliyeed uu guursaday iyo carruurtii uu ka dhalayba waxa uu ka soo qaaday sidii inuu remove gareeyay, uu gebi ahaanba noloshiisii ka tirtiray oo kale. ma xidhiidhiyo, ma sheegto, umana ogola inay helaan dhalashada dalka Saudi Arabia. nasiib darro muddo kadib hooyadii Soomaaliyeed way xanuunsatay oo waxa la soo gudboonaaday xanuuno. ninkan waqtigii uu gabadha Sacuudiyaanka ka raacay hooyadiina Soomaaliyeed carruurtu way yaryaraayeen. hase ahaatee markii uu isaga tegay uu xataa soo salaami waayay asagoo kula sugan isla gudaha dalka Saudi Arabia ayada la rafaatay, la dadaashay, carruurtii korisay. hase ahaatee carruurtii markay waaweynaadeen ma haystaan haba yaraatee xataa warqad yar oo muujinaysa inay ubadkan yihiin Sacuudiyaan. jaamacado ma geli karaan, ma shaqo tegi karaan. xataa haddiiba ay gabadhani 19 jirka is tiraahdo shaqee oo dabar oo hooyada dhakhtarka gee, shirkadu ma shaqayn karto, ma jirto cid aqbalaysa inay u shaqayso. sababtoo ah ma haystaan jinsiyadii Sacuudiyaanka, xataa ma haystaan iqaamadii ay dalka ku joogeen. hooyadeed markay xanuunsatay ay xaaladeedii xumaatay ay xataa geyn kari weyday cisbitaaladii maadaama ayna intooduba qoysku siduu u dhan yahayba aanu haysan dhalasho Sacuudiyaan ah, iqaamo waxbaba aana haysan. noloshii markii ay ku xumaatay xaaladiina ay ku adkaatay gabadhii waxay bilowday inay u qaylo dhaan tagto aabaheed. way dacwoodeen, way dadaaleen, waxay isku dayeen inay samaystaan jinsiyadda dalka Saudi Arabia sababtoo ah waqti xaadirkan waa Sacuudiyaaniin, aabahood waa Sacuudiyaan, ciday ku aftirsadaan waa Saudi Arabia, meel kale tagaan ma jirto. markii codsigoodii la aqbalay ee dhalashadii in loo soo saaro kaliya ay ka dhiman tahay aabaheed inuu saxiixo ayaa waxay ka codsatay aabaheed kaliya saxiixa. hase ahaatee aabaheed xataa waxa uu diiday saxiix.
yacni maxay culays ku tahay xataa noo dacwo lama laha waxba looma dirsanayo keliya saxiixuun hase ahaatee odaygani sacuudiyaanka ah reerkani uu ka dhalay gabadhani soomaaliyeed gebi ahaanba booskiisa waa ka saaray bal cadaawadda iyo xaasidnimadu halkay gaadhsiisan tahay day ubad uu dhalay ayaa waxa uu nacaybka intaasi lagugu qabaa keliya gabadh madow oo soomaaliyeed buu ka dhalay gabadhii markii uu diiday hooyadeedna xaaladeedii ay soo xumaatay waxay bilowday inay baraha bulshada soo gasho islamar ahaantaana ay hashtaagyo cabashaha ku baahiso baraha internetka sida twitterka oo kale hase ahaatee gabadhii aamina ahayd waxay weyday cid garab istaagta iyo xataa cabashadeedaasi iyo hashtaaggaasi la baahisa oo ku garab istaagta si ay xaqeedii ay ku lahayd waalidkeedii ay uga hesho dalka ay u dhalatay oo ah dalka sacuudi arabiya hase ahaatee cabashooyinkii ay baraha internetka gelisay aamina waxaa arkay dad u dhow aabaheed intaasi kadib waxaa lala soo xidhiiray aamina aad u foolxun loogu cagajuuleeyey looguna khasbay inay ka tirtirto gebi ahaanba qoraaladii ay ku qortay baraha internetka taasi oo keentay inay gebi ahaanba ka masaxdo qoraaladii ay barta twitterka soo gelisay ما كنت أتوقع هذه النتيجة أشكرهم جدا ولكن حصل خطأ مني أعتذر أشد الاعتذار لجميع من يسمعني الآن فقد حذفت التغريدات ولكن ليس خطأ مني بل قامت سيدة بالاتصال لي في يوم الجمعة بالتحديد الساعة 12 وقامت بتهديدي طبعا هي تتبع إحدى الجهات المعنية وتقول بأنه سوف ينقلب علي سلبي وأنا طبعا أنا خفت من حق إني أخاف لإني فتاة شابة ما عندي أحد يكون ورايا بعدين فخفت أنا وحذفت جميع التغريدات muddo kadib qisada gabadhan waxa baahiyey wiil youtuber ah oo lagu magacaabo Faisal isla mar ahaantaana ka soo jeeda dalka Sacuudi Arabiya asagoo isla mar ahaantaana ku canaananaya naxariis darrada ay ku dhaqaaqaan qaar kamid ah Sacuudiyaaniintu كل واحد قاعد يسمع هذا المقطع يكمله ويوقف معانا وممكن انه يكون من اسباب ان احنا نسعد هذه العائله ممكن الحين تستغربون عن ايش انا جاي اتكلم لما الاب يكون هو اول واحد يوقف ضد العائله وهذا بكل اسف تعتبر طامه كبيره ان الاب هو المفروض يكون سند لهذه العائله يكون ضدها ma hubo inay heshay dhalashadii dalka Sacuudi Arabiya iyo in kale hase ahaatee runtii waa arrin aad u xanuun badan dhibaatooyinka noocan oo kalena gabdhaheena Soomaaliyeed aad ay ugu badan yihiin kulli waad garan kartaa haddii aad ku nooshahay wadamada Carabta waxaad arkaysaa boqolaal gabdhood oo Soomaaliyeed oo ay qabaan niman Carab ah badanana gabdhahaasi waxay ku dambeeyaan sidoo oo kale oo intay caruur ka dhaldhalaan ayay banaanka istaga dhaqaaqaan markaasaad xaafadaha Soomaalidu degto waxaad ku arkaysaa caruur aad u tiro badan oo leeyahay waa muwaladiin yacni waa iska dhal Soomaali iyo Carab arkina maysid haddii aad aragtidna aad bay u yar tahay qofku leh waxaan ahay iska dhal Carab iyo Soomaali iska dhaleen oo uu aabihii yahay Soomaali arki maysid haddii aad aragtidna aad ay u yar tahay yacni waa dhif iyo naadir caruurahaasi badanaa waxaa dhalay gabdho Soomaaliyeed oo qurqurux badan oo banaanka ka heleen hooyo Soomaaliyeed oo caruurteeda kula dhibaataysan wadamada Carabta marka uu nin Carab gabadheeda ka soo doonto way farxaysaa waxay odhanaysaa cawadeeda wiil Carab gabadheeda soo doontay sababtu waxay tahay waa gabdho qurqurux badan aadna raqiis u ah xagga haddii uu siraado guurso gabadh Carabiyada laga shubayo kharash aad u badan way jiraan kuwa wanaagsan oo Ilaahay akhlaaq iyo diinba siiyay isla mar ahaantaana uu ilaaliyo gabadhaasi Soomaaliyeed oo guursaday xuquuqdeeda balse waxa badan kuwa gabdhaheena Soomaaliyeed quruxdooda inta ka faa'iideystaan caruur ka dhaldhalaan markay ku meel gaadhaan ay awood u yeeshaan inay guursan karaan gabdhaha kale Carbeed iska furo oo banaanka isaga dhaqaaqa iyadii caruurteedaba marka miskiintaasi laba mid un baa u bannaan inay caruurteedaasi soo kaxaysato ay keento dhulkeedii hooyo iyo inay awoodiba kari weydo intaas ay kula dhex rafaato wadamada Carabta gudaheeda ay iyaduna u shaqeyso ay la rafaato sida gabadhaasi Soomaaliyeed ba yeeshay ilaahay caruurteedu ka kobcayaan ugu dambeyn ilaahay waxaan ka barayaa sharaftii iyo cizigii iyo karaamadii lagu yaqaan ummadda Soomaaliyeed inuu soo celiyo oo kor u qaado nagana bogsiyo cudurkani aadkay noo ragaadiyay ee ah qabyaaladda dunidu waxa isku dhaafeen wadaniyad wadamada kale horumaray haddii aad tagtid waxaad arkaysaa kay ku nool yihiin ummado kala duwan kala qoomiyad ah kala midab ah kala af ah oo haddana aad ugu mitida midnimada iyo wadaniyadda kaba soo qaad wadan ay Soomaaliya waqti aan saa u fogeyn caawin jirtay ee dhibaatooyinka haysta darteed caawimaad inta looga qaado Soomaaliya loo geyn jiray maantana dunida la tartamaya waa wadanka Malaysia haddii aad tagtid waxaad ugu tagaysaa ummado kala duwan Malayu Hindi Chinese mid walba dhaqankiisa iyo diintiisa haysta hase ahaatee dhexdooda waxa ugu muhiimsan waa wadaniyadda nin Hindi ah oo af Hindi ku hadlaya oo meherad ku dhaxaysta Malaysia haddii aad istiraado cuntada lacag dollar kaga cun asagoo awoodi karaya inuu ka qaado haddana lacagtaasi ka qaada maayo oo waxa uu qoranayaa anigu ma Mareykan baan ahay Malaysian baan ahay lacagta Malaysia miyadii haysaa xagga inagana midka ugu hooseeya kaariyoonaha kabaha ku dilaybinaya haddii aad baayacdeed waxa qoranayaa waa $5 waa $4 waa $10 lacagta dalka maxay ku noqonaysaa haddii aad tiraadidna xisaabu ku galaya suuban ha sugeeyo hanbadala dollarke يعني waxay ka mid tahay horumarka iyo dhaqaalaha dalka ugu dambeyn daawadayaal muuqaalkeena maanta halkaasi ayuu ku egyahay fadlan muuqaalka like saar si uu dadka loo sii gaadho sii share gara sidoo kale haddii aad ku soo biirin channelka dadweynaha haatan ku soo biiro subscribe saar sidaas iyo amaana Allah assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ku xidhnow channelka dadweynaha subscribe saar oo ku soo biir